بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عاوي تاي مارتي جمعة oo sabti soo galaysa oo saacadu taay maartay 10 iyo 20 minute halkan maartay wariye Xasan Cabdi baa ku jira oo qadka kaga jira maartay dira dhabe gobolka City soo dhawow wariye waxa la ii sheegayaa toddobaadkan oo dhan inay jabhadii Oromadu ku soo noqonayso gobolka City waxa loogu soo tilmaamay ma garanaye oo dhiigoogu isgaaray maxaa war ka haysaa waad maasantahay maxamed haddaan kaaga warramo wararkii u dambeeyey kooxdaasi jabhadda waxa lagu magacaabaa ola waa jabhad mucaarad ku ah dowladda Itoobiya oo ka soo jeeda deegaanka Oromia marka toddobaadadan gobolka City dhalinyaro la soo khalday oo maaragtaanay ayaa laga soo abaabulay maaragtaanay oo kooxdaasi oo soo dhex martay magaalada Diridhabe gaar ahaan qabaleyaasha miiga hoostaga kooxdaasi waxay ka soo gashay gobolka ugu horeyn meel la yiraahdo Laasdheere ku toosan ayay kaga soo dhaadhaceen waxay maaragtaanay bishan aan ku jirno ay dhibaato ay ka geysteen wadada isku xidha Itoobiya iyo Djibouti waxa ay dhaawac u geysteen gawaadhidii isjiidka ahaa ee xamuulka ka keenaya badeecadaha maaragtaanay dalka Djibouti markaas ciidamada iyo maamulka gobolka City iyo hay'adaha amniga dhamaan ciidamada maleeshiyada ayaa ka howlgalay waxaana maalin islam toddobaadkii kaleba sabtideediiba la soo qabtay xubno kamida qaarna maaragtaanay waa la laayay qaarna way baxsadeen marka intaasi kadib laga soo bilaabo isla bishan way nagu soo noqonayeen oo maaragtaanay kolba meel bay gobolka ka soo weerarayeen hagu badnaato dhinaca wadada laamiga xigta ee Itoobiya iyo Djibouti ka adeegato marka wararkii shalay toole waxa la sheegayaa in maaragtaanay kooxdaasi ay halka iyo maaragtaanay meel la yiraahdo Harmukaale ay maaragtaanay ka gudubtay dusheeda halka ay martay baraaq ay martay dadka dhibaatada u geysanayaan reeraha ay galaan raashinka ka karsanayaan oo telefoonada ay ka ururinayaan kabaha ay kala baxayaan maaragtaanay dhibaatooyinka bay shacabka u geysanayeen marka ugu dambeyn shalay toole dagaal xoogan baa ka dhacay aaga gaad la yiraahdo halkaasi waxa qaar badan lagaga laayay qaar badanna gacanta lagu soo dhigay iyagoo nool markaas waxa iyadoo sidoo kalena intii u dambeysay caawa maaragtaanay gabi ahaanba la soo afjaray oo intii shalay toole ku dhuumaalaysanayay degmada Shinile hoosteeda qabaleyaasha hoose waa calooshii banka dad waa shil leeyahay ku dhuumaalaysanayeen marka waxa weeye kooxdaasi soo waa dad la soo khaldayeen hub fara badan bay soo diiqeen maaragtaanay oo dhalinyar badan oo la soo khalday ayay hayeen dhalinyartaasina maaragtaanay waxay ka soo jeedaan deegaanka Oromada oo intii u badnayd gacanta lagu dhigay marka dagaalka wajigii koobaad shalay waa la soo gabagabeeyay caawna wajigii labaad baa la soo gabagabeeyay oo intii u dambeysay la soo qabtayna muuqaal baan ku haynaa marka waxa ka howlgalay ciidamada Fardawliyo ee liyu booliska maleeshiyada booliska dhamaan hay'adaha nabadgelyada ee maamulka gobolka City ugu horeey gudoomiyaha hoggaanka nabadgelyada si adag ayaa looga wada howlgalay waa ka maxamedow imakana xaaladdu way degan tahay laakiin meeshan hay soo marayaan Diridhabe iyo soo dhex mareen baa tiri qablayaasha Oromo gobolka kilinka shanaad iyo xal la leeyihiin halkay kale xal la leeyihiin afarta maxad bay la leeyihiin Oromadu ma Oromadu xad lama leh waxa weeye waxay ka yimaadeen oo ay xad la leeyihiin waa xagga iyo Diridhabe qabaleyaasha hoos yimaada ayay soo mareen oo buurta ka soo dhaadhaceen kadibna markay xagga annaga waxay naga yimaadeen cadbaxa jihada xagga cadbaxa marka qabaleyaasheena laamiga markaad daafto buurahaad galaysaa buurahana waxa weeye dadka ku nool waa dad afka maaragtaanay iyo halkaa bay soo dhex mareen marka shacabka dadkaasi dhibaatooyin fara badan bay u geysteen hadday dhac boob
hantida dadka xoolahooga ayay samaynayaan marka kooxdu waa koox aad iyo aad maaragtaanay dad maaragtaanay iska cayra weeyaan haddana qoryihii sita marka waxaa dhacday dadkan deegaanka Oromiya meel ay kaga gabbadaan bay waayeen baan filayaa kadib bay u soo dhaadhaceen xaggeena gaaja u soo dhaadhicisa la odhan karaa gaajiyo iyo security dhimashaday ka baqayaan halka bay soo doonteen waxa weeye bal inay kooxdani maaragtaanay waa koox inay yihiin maaragtaanay dhulkeenan fiicnidiisa iyo maaragtaanay inay u nabadgelyada iyo maaragtay xoolaha intaa laga maraya 120 malyan u maraya xundurtii dharnayd kol hadday dikadaasi kolkaasi dawladda federaalku ma ogo dawladda federaalku way og tahay caawadan waa laga howlgalay oo in badan ayaa lagu laayay qabale la yiraahdo jaldaysa ama la yiraahdo qalcad oo maaragtaanay sida qabale qadiimiya oo taariikhiya oo saylac sida saylac oo kala oo ku yaala maaragtaanay oo degmo kamid ah dirdhaba oo xagga iyo maaragtaanay cadbax naga xigta qabalaha halkaas xaruntaasi maanta federaalku wuxuu ku laayay xubno badan oo iyaga kamid ah ayaa lagu laayay oo isla caawadan lagu laayay xubnihii kalena waa aniga ku sheegay ciidamada deegaanka gaar ahaan kuwa gobolka City ayaa ka howlgalay oo waxa iyagana laga keenay intii u dambeysay caawa ayaa la soo wada qabtay marka dadkan qaar dhalinyarada marka la warayso waxay leeyihiin waxaana kuwii dadkii laga soo celiyay dalka Djibouti bay qaar sheegayaan adu waa dad la soo khalday oo maaragtaanay deegaanka Oromiya ka soo baxay degmada Shindilana wax loogu soo sheegay iyo gobol iyo deegaanka mooyaane hadda dhibaato ka wadi maalmahanba hadafkooda u weynaayay inay isku sawiraan ay yiraahdeen gobolka City baan maaragtaanay ka howlgalnay wadada Ethiopia Djibouti baan goynay adu waa siyaasad guud ay maaragtaanay oo rag dibadda inay ka dambeeyaan aan la garanayn adu jabhadaasi dhibaatooyin fara badan bay ka geysatay maxaad ogeysiinaysaa waddanka Djibouti iyo maaragtay xaggan maaragtay salal ee xadka Ethiopia lale ee xariirad maxaad ogeysiinaysaa sida laga waxaan ogeysiinayaa dadkan waa dad maaragtaanay hadafkooda la garanayn waa dad maaragtaanay u socda sidii ay dhul u heli lahaayeen maadaama dhulkoogii uu noqday dhul aan ku filnayn sidaad ka warqabtid waadigii ogaasi wixii Hargeysa iyo dadkii dhulka joogayay Soomaaliland waa tiis ka soo saartay dalka Djiboutina waa kii qayb iska soo saartay laakiin qaybi u badnaa oo kala dib un bay u noqdeen amniga Djiboutina khalkhal bay gelin karaan haddii ay maaragtaanay la dagaalami weydo oo maaragtaanay ay iska soo saari weydo dadkaasi sharci darrada maaragtaanay waddanka jooga baananka la dhici amniga shacabka ay ku fadhiyaan baa khalkhal la gelin marka waxa weeye dadkan waa in gacan bira laga hortago ma ahin waa anagu tadaanahay dadkeena gaar ahaan beesha Ciise iyo Soomaalida waxaan waa miskiin iska daa waa caadgooy iska daa Djibouti waad arkaysaa meel kasta ay joogan marka hantidana waxay ku bixinayaan sidii ay dhulkaasi kula yeelan lahaayeen marka waxaan Djibouti u sheegay maaragtay dawladda Djibouti iyo maaragtay booliska ugu sareeya iyo maaragtay in securityga cir iyo dhulba dadkani in waysa siiyeen sida Bekaduus la leeyahay balbala way la wareegeen baa leeyahay kaartiyaashay la wareegeen maxaad in hadhow tolo dhibaatadu hadday sii biirto ha intay maaragtay dhibaatadu biirin dad inta soo galbaa iska muusaa maxaad dawladda Djibouti fariin dheer u diraysaa waa markii ugu horeysay taariikhda abid ay koox jabhada oo Oromo ay soo gasho gobolka City waa taa isku day weeyaan haddii sidaas oo kalena Djiboutina way ka dhex bilaabmeen oo kooxaha mucaaradka Djibouti bay ku biirayaan si ay u qasbadaan hadafkooduna uu dheer yahay sidii xitaa ay bad u heli lahaayeen iyo hadafkoodu yahay marka waxaan u boorinayaa waar hawshii aad tarxiilka aad bilowdeen ka xajisinaya hawshiina halka ka wada waddanka ka sifeeya cid kastoo maaragtaan sharci darraa oo amniga dadka khalkhal gelin karta ayaan ku boorinayaa ciidamadu inay hawshaasi qabtaan gobolka City caawa guul baan leeyahay hay'adaha nabadgelyada iyo dhammaan maamulka iyo mas'uuliyiinta hoggaanka ugu horeeyay gudoomiyaha hawshaasi caawa soo afjaray
wixii dambana waan ogaan doonaa bal inay intaan ku joogsadaan iyo inay sii socdaanna maalmaha soo socdayaan insha Allah ogaan doonaa laakiin kooxdani waa koox dabada laga soo riixayo oo maaragtaanay gobolkan city oo hodan ku ah biyaha khayraadka dhammaan hodan ku ah ilaa maaragtaanay haddii gobolka cityna ay sidaa noqoto jabuutina ma badbaadiso markaa si wada jira ayaa hadda maaragtaanay hawshaasi annaga gobolka city haddii aan hawshaasi si adag looga howlgalo jabuutina waxay badbaada iyo u tahay selelna waa saas oo kale marka waxaan ku boorinayaa in cid kastaba ay mas'uuliyadda qaadato oo maaragtaanay kooxahaasi liska dadkooga ay badbaadiyeen saasaan leeyahay maxmed wixii warreed dambana gadaal baan insha Allah kaala soo xiriiri doonaa caawana waxa weeye waxaan leeyahay xubnaha ka howlgalay ee hawshaasi kooxahaasi soo qabtayna waan u mahad celinaynaa adigana waan ku mahad celinaynaa aad baad u mahadsantahay intaan kulmi doono nabadgelyo iyo amaano Allah